yahay xisbiskiisa iyo dhimashada nafteeda aad u badan dadka uu soo haleelayo ma aha keliya dadkii waaweynaa dadka yaryar ayaa hadda u dhimanayo isbitaalada aragno waxaan rabnaa taxaddarka inaan xoojino la raaco habraacyada xakamaynta dowladda in la kala dheeraado in afka la xirto in meelaha fagaaraha masjidada aan la tegin la raaco awaamiirta ku soo baxaysa dowladda iyo gobollada waxaa faahfaahin doona gobolka banaadir wixii xakamayn amaba la soo wado laakiin walaalayaal waxaan leenahay cudurka aad u fidaaya dhexdeennu ku jira waa fidaaya waa inaan isugu tagnaa sidii aan u xakamayn lahayn loo yarayn lahaa واجب صار نفس هذا نفس إذا نفس أمته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan haddana wasiirka wasaaradda gargaarka iyo xirfadda masiibooyinka xafiiska maxamed yuusuf ayaa wixii go'aamadii ugu dambeeyay bismillaahi raxmaani raxiim sida looga ogsoon yahay guddiga qaran caafimaadka laba tacliinta caabuqa gaar ahaan doofaarka wacyigelinta horay go'aamo loogu soo saaray ayaa waxay tahay in sida wasaaradda dhakhaatiirta noo sheegeen uu sii qabanayo baahida mufaafidda cudurkan coronavirus covid-19 laakiin markii hore sanadkii hore sidii ahaa isbaan labaad in ay kala duwan yihiin waxyaabihii la sheegay waxaa ka mid ahaa sanadkii hore in soomaaliya ay saacisay boqolkiiba 75 dhalinyaro ah waqtiyada laakiin maanta sanadkii ma badbaadin waxaana ugu daran dadka waayeelada ah haddana isaalkeenna aan wada ognahay waa lagama maarmaan markaas waxyaabihii lagu dhawaaqay ee dowladda soo deystay bilaashii meelaha la isugu imaado dugsiyada qur-aanka in la kala furto oo aan goobaha la isugu yimaado dhan la yareeyo waxaana filayaa inaysan sidii hoosteeda u socdin kolley awaamiirtaas waxaa ka rabsinaaya waa la sheegi doonaa laakiin waxaan kaloo u jeedinayaa dadkeena maadaama culeysyadaas la saaray dowlad goboleedyadana waa ugu horaya diyaar wasaaradda caafimaadka lagu soo aruuriyey xasilashada gobolka banaadirna ilaa 1 milyan aa lagu qaybin doona maadaama la og yahay qiimka iyo halkaas dadkeena qaarkiisa aysan awoodin dadweyinka intii dadweyne arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kalena dadka barakacayaasha airportka lagshanaysa macnaha waa la soo gada waa la soo qaadamaya miya qarashka dadka waxaasada baxsanaysa